بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبد الله محمد عبد الله كمدة معلمين معهد ضيح أكاديمي مجال مقدشو هدي أن هرجع كبحي معهد حكم ديها معاهد كسو بيري دوان مجال مقدشو معهد هدفه هو إن الله فرق وإنه أدير أمد الصوماليات وأنا كقرب قاته هرمرنتا يتيانتا وحبرشدا جودهان ودن كجارهان مجال مقدشو معهد حياله هو وين oo higsanaya waa inuu soo saaro arday tayo leh oo si fiican wax u barata waxyaalaha inta badan xoog saareenana waa barashada luqadda Ingiriiska iyo horumarinta nafta bini'aadamka manhaj casri ah ay diyaarintiisa iska kaashadeen macadka Dayax Academy iyo jaamacadda caalamiga ee Harvard University manhajka waa manhaj Mareykan ah oo qofka wuxuu ku baranaa lahjada Mareykanka waxaan isticmaali doonaa afar buug oo kala duwan lixda bilood ugu horeyso lixda bilood ku xigta ardayga wuxuu qaadanaa afar buug oo kale sideedaas buug ayaa lagu talagalay iyo buugaag kale oo supplementary ah marka waxaan rabnaa ardayda soo bandhigno manhajkan cusub iyo qaabka uu shaqeynayo oo isticmaaliga Dayax Academy haddii aan ku hormaro buug ugu horeeyo waa speaking training buugan ardayga wuxuu ka caawinayaa barashada ku hadalka luqadda Ingiriiska waxaan u qorayaa qaab training ah sida ognahay ku hadalku waa mid kamid ah xirfadaha luqadda Ingiriiska waana mid kuwa ugu muhiimsan waan hadaf inta badan qofka u baranay luqadda inuu kula hadlo kula xiriiro dadka oo raba inuu la hadlo buugani wuxuu u qoran yahay qaab training ah sida hore u sheegnay waxa aan practice la sameynaysaa qof u dhashay luqadda Ingiriiska oo ajnabi ah ardayga marka wuxuu awood u siinayaa kalsooni u siinayaa inuu la hadlo qof u dhashay luqadda Ingiriiska inuu la sameeyo practice maadaama environmentiga uusan u saamaxaynin inuu ku hadlo luqadda Ingiriiska sidoo kale buugga labaad oo aan isticmaalayno manhajka waa listening and reading buuggani wuxuu ardayga ka caawinayaa dhageysiga iyo akhriska sheekooyin badan oo ku qoran buuggan taasoo ardayga awood u siinayso in uu fahmo curiska iyo qorista sheekooyinka iyo maxaa tiraahdaa in markuu wax dhageysanayo wax badan uu fahmo ayuu awood u siinaya sidoo kale buugga saddexaad oo kamid ah manhajka uu isticmaalaya Dayax Academy waa grammar basics grammarku waa laga maarmaan laakiin qaabka inta badan iskuulada ardayda u baraan uu ka duwan yahay buuggan qaab wuxuu u qoran yahay ku hadal grammarku waxa lagu baraa qaabka loo isticmaalo ku hadalka markay noqoto kaliya ma ku baran doontid grammar qaleel ah sidoo kale buugga afraad oo isticmaalayno waa vocabulary power buuggani ardayga wuxuu ka caawinayaa inuu barto vocabulary badan erayo badan adeegsigooda iyo sida loo isticmaalo wuxuu kaloo ardayga si fudud u fahamsiinaa maxaa tiraahdaa erayga wuxuu wataa maqal iyo muuqaal oo eraygii waxa uu yahay ayaa ku arki doontaa buugga gudihiisa video asoo ah iyo asoo maqal ah waxaan ku talagalnay koorsadan muddo 1 sano iyo 2 bilood ah ardayga markii uu dhameysto oo ka soo gudbo shaqadaas adag waajibaadkaas imtixaanaadka kulli markii uu ka soo gudbo ardayga wuxuu xaq u yeelanaa inuu helo shahaado dibloma oo English ah ayuu xaq u yeelanaa inuu ka qaato xarunta Dayax Academy marka waxaan dhammaan soo dhaweynaynaa bahda jecel waxbarashada gaar ahaan dadka daneynayo barashada luqadda Ingiriiska inaad gacmo furan ku soo dhawaataan oo aad soo booqataan xarumaha Dayax Academy ku leeyahay guud ahaan magaalada Muqdisho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh